cid kale uma iman waxa burburiyay weydaan isogay oo weydaan ismaqlayne dagaalka galaba burburiyay saddexdii garaad la socday madaafiicda ku dhacday iyaga sababta keenay iyaga xagna xixin qodobka waxaan leeyahay dhulbaantow cadowgiina garta nasaxina garta halkii ku baxday garaad jaamcu tana waxaad ka hesho iyo waxaad kala kulantaa anaga waxba naga siin dhulbaantow idinka istilay idinka burburiyay laasaanood cid kale uma iman qayba kamida salaadiinta beesha habar jeclo ayaa gaaray deegaanka Boqorkeyn ee ka tirsan gobolka Sool deegaankaasi oo maalmihii ugu dambeysay ay ka taagneyd colaad u dhaxaysa dadka deegaanka reer Guraaga iyo ciidamada loo yaqaan markaasina deegaankaasi kaga soo duulay ceegaagiyeyle salaadiinta ayaa kormeeray markaasina ku sugan deegaankaasi waana kuwan salaadiinta oo fariin adag u diray dadka deegaanka halkan aan ku qabanayno shirjiraadku waxa weeye waa Boqorkeyn baan ku qabanaynaa jiideeda hore baan ku qabanaynaa halkan ku hadlaynaa halka weeye waxaan inta u dhaafayaa saddex qodob baan u dhaafayaa wixii kale salaadiinta ay iga dambeyn doonta saddexda qodob waxa weeye ka koobaad waxaan la hadlayaa oo qodobka koobaad ah dhulbahante heerka la yiraahdo oo in badan aanu ahayn Soomaaliland wada ahayn oo dhib iyo dheef baan wada ahayn oo intii sanadkan tagaya inta arabka ka dhigi waayay habar jeclo iyo isaaq arabka dhigi waayay waxaan qodobkan u sheegay waxa weeye dhulbaantow idinka istilay idinka burburiyay laasaanood cid kale uma iman waxa burburiyay weydaan isogay oo weydaan ismaqlayne dagaalka galaba burburiyay saddexdii garaad la socday madaafiicda ku dhacday iyaga sababta keenay iyaga xagna xixin qodobka waxaan leeyahay dhulbaantow cadowgiina garta nasaxina garta isagoo mid isaaq waxaan idin leeyahay isaaq nasaxinu waa garan weydeen wixii laga qabtay laasaanood buu hoodle wadwad ee dawladdu ka qabatay ee cashuurtiina ka qaad jirina wad xusuusan weydii waxaan idin leeyahay qodobka waxaan leeyahay Soomaaliland abaal bay idinku leedahay isaaqna abaal bay idinku lahaa waxaad nabadaba kaga jawaateen xumaan iyo qalalaasi qodobka waxaad ka heshaan waxba ka sinnin cid qodobka ugu gudbaya waxa weeye waan soo koobayaa wixii kale salaadinta kala odhanaysay kullee wuxuu dhulbaantu ridada saadan baad garan qodobkan ugu gudbaya waxa weeye isaaq ama Soomaaliland inta kale ama irir waxaan uga gudbayaa nabad waa jecel helisi meysaan laakiin kelmadda ay isticmaaleen halkan aanu ka hadlaynaa waa Sool bay ka tirsan tahay kelmaddaas dambi ugu filan ma islahaa laakiin fidnay ku darsadeen fidnadii waa sababtay in dagaaladan ay dhacaan oo ay horseed ka yihiin qolada qabqablayaasha u xuubsiibatay ee maxay ahayd garaadada ah iyo qolada culimada isku sheegta ee dhibaatada halkan ka dhacday ama Sool ka dhacday ama aagan ka dhacday hormuudka ka ahaa fidnadii ay abuureen ayaa halkan taala dadka deegaanka anagu hadaanu salaadiintiisinahay oo wareysanay oo xogtii aanu baadhnay waxa xaqiiqo ah inaan wax xadgudub lagu sameeyay iyagu soo xadgudbeen hadii lagu soo xadgudbana jawaabteeda waa in la iska ka celiyo oo la iska ka dhiciyo ta meesha taala waa taa qodobka intaasan kaga tagayaa waxa soo hadala ah waxa inshaare u yihiin in dalkan lagu soo duulay nimanka garaadada sheeganaya siiba nimanka dhibaatada wada oo garaad jaamac kamid yahay garaad jaamac kale kamid yahay maxay ahayd Cabdirasaaq kamid yahay Soofe nimanka dhibaatada hormuudka oo shacabkoodina dhibaatada geliyay ee dagaalka dalkoodii geliyay ee dariskoodii dagaal geliyay ee maxay ahayd ay silmana dagaal bay idinku badinaysaa tii horta waxay ka helaan bay leeyihiin halkan waxaan ku kormeer ugu nimi jiida hore ciidamada habar jeclo iyo deegaanka Boqorkeyn oo aan hadda jijiro ku qabanayno kormeerkaygu wuxuu daaran yahay inaanu indhino jiidaha ciidamadu joogan sida ay ugu diyaarsan yihiin dagaal iyo maxay ahayd xasuuq iyo dil iyo dhac iyo boob iyo dhac iyo dhac iyo boob 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 iyo dhac
iyo sida hawlahoodu ay u socdaan maanu halkan ugu nimi aad iyo aad bay u diyaarsan yihiin waxaan u mahad celinaynaa madaxda ciidamada madaniga ah ee habar jeclo ee u diyaar garoobay inay dalkooda difaacaan halkan waa Buurarkayn waa halkii ay ku soo weerareen huwantu maatada iyo carruurta degan ee ay ku gubeen magaaladii ee ay ku barakiciyeen iyagoo wax laaliya wax colaad oo u dhaxaysay labada beelood aan jirin system baa dagaalamayay habar jeclo ay ka mid ahayd si badheer ah iyana ka mid ahaay habar dhulbaanta ka mid ahaa si badheer bay u soo weerareen magaalada Buurarkayn una gubeen inta waxaan uga gudbayaa waxaan leeyahay garaa jaamac garaad gala dagaalka halkan yeelay iyo Buurarkayn taariikh badan bay lahaayeen maanta kaliya dagaalka ma dhicin habar jeclo iyo dhulbaanta 10 jeer bay ku dagaalameen taariikhdooda waxaan kaaga xusi karaa caga kulele yeeliyo dulgaal cagaha ma u saaray oo maanta tolkay cimru degay cirifkii boohodle waa halkii ku baxday garaa jaamac tana waxaad ka hesho iyo waxaad kala kulantaa anaga waxba naga siin Soomaalidu waxay ku maamaadaa dhulbaanta waan aqaanaa ladnaanta ma xejiyo xilligiisii bay gaadhay habar jeclana maanta isbaran maysan adna waad ogtahay tulkaana waa ogyahay aad kaga dhawaaqday laascaanoodna waa Soomaaliland laascaanood waa Soomaaliland xadkeeduna waa yoocada Soomaaliland adiga iyo inta kula midana gacan baan ku soo qabanaynaa dagaalka habar jeclo qaatayna maanta u diyaar garow waana kula qaadanay waa Cali Taani telefishanka on cable deegaanka Buurarkayn ee gobolka Sool.